waan ku salaamay saaxiib. Si dhab ah ayaan u garanayaa dareenka macaan ee ay leedahay in ugu dambayn aad hesho qofkii qalbigaagu raadinayay ku habboonaa. Qof kuu noqda saaxiib markaad u baahato saaxiib, kuu noqda garab iyo gaashaan markaad u baahato cid ku garab istaagtaa, kuu noqda boqorad markaad u baahato waxaad ku tiirsato. Qof aad agtiisa ku dareenta ammaan buuxa oo aanad hor u dhadhamin. Saaxiib, ma naqaano qiimaha dhabta ah ee waxaynu jecelnahay amba u xiisa qabno ilaa aynu helno qof aanu marna tunkaa gelin inuu yahay abaalmarinta cimrigii dheeraa ee aad soo qaadatay gebagabadiisii. Qof magdhow u noqdo wax kasta oo aad hore u soo weyday. Dadka qaar ayaa kuugu imanaya sidii inay yihiin dhambaal cudurdaarasho ah oo ay noloshu kaaga raaligelinayso wax kastoo ay hore kuugu soo samaysay. Balse haddana saaxiib, waan dareemi karaa sida ay u xanuun badan tahay in qofkaasi uu qofkaagii noqon waayaa, iyadoo unug kasta oo jidhkaaga ahi uu dhankiisa aadayo, garaac kasta oo wadnahaagu uu samaynayaana uu isaga ku aadan yahay, atam kasta oo hawo oo sanbabadaada galaana uu isaga raadinayo. Intaasoo dhan kadibna aad ogaato inaanad sinaba qofkaasi u heli karaynin maadaama uu jiro qof kaaga dheereeyey, oo aad ogaato qofka soo dibdhacay inuu mar walba safka gadaal ka gelayo si kasta oo iskugu dayo inuu soo horumaro iyo inuu yahay cidda ugu horraysa ee laga kaaftoomayo. Aad ayay xanuun badan tahay inaad boos ku yeelato qof qalbigiisa laakiin aanad ku yeelanin noloshiisa. Saaxiib, mid ka mid ah imtixaanada ugu adag ayaa ah qof kugu dhex nool si aanad calfanaynin, adiguna aad dhaqaaq joogsi ka dhammaan weydo, aad horena u sii socon kari weydo, halkaasna aad ku nagaan kari weydo. Mararka qaar wixii aad awood lahayd oo dhanba aad iskugu geyso inaad isaga ku dhegto oo aad haysato sidayna tahay qof qarqoome uu gacan loo fidiyey isagoo qiiqdii u dambaysay ku jira. Mararka qaarna aad go'aansato inaad gacantiisa sii dayso oo aad ka mudhuxsato maadaama aad garanayso in kuwa ay mahuraanka tahay inuu qofkaasi badbaadiya ay adiga kaa hormarayaan oo ay kaa mudan yihiin. Kadibna aad gacantiisa ku sii dhegganaan kari weydo, siina dayn kari weydo, oo aad dhexda ku goosato dhinacna aad u dhaqaaqi kari weydo. Waad mar naftaada uga baqdo inaad la sii wadi kari weydo qofkaas intaas wax ka badan, haddana aad naftaada uga baqdo inay sii noolaato adiga oo aan isaga haysanin. Saaxiib, waxaa ku soo maraya marar aad u malaynayso inuu qofkaasi jidhkaaga kaaga dhow yahay, haddana waxaa ku soo maraya marar kale oo aad dareemayso inaad meero ku nooshahay isaguna meero kale ku nool yahay. Badnaanta dalka iyo dadka idiin dhexeeya awood si dhab ah ayaad u dareemaysaa inaanu qofna kaaga farxinayn sidii uu kaaga farxin jiray isagu, sidoo kale aanu qofna kuu dhibi karayn sidii uu ku hagardaamin jiray isagu. Ilbiriqsiga aad la qaadataana waa janno, ka uu kaa maqan yahayna waa jaxiima, balse waa janno aanay mar walba rideedu kuu furnayn. haddii albaabadeeda laga xidhana waxaa keliya ay ku sugayaa waa cadaabtaasuun. Si aad macaanka taas u dhadhamisana waa inaad qaraarka taas kale horta soo dhadhamisaa mar kasta oo aad ka tallowdo teed aba moos si aad u gaadhana waxaa kaa hor imanaya kunteed oo cusub. aad ayay u xanuun badan tahay saaxiib inaad cimrigaaga aad la tartanto teedadkaas. waxaad u ordaysaa ilaa dabayaaqada marinkaas. mar kastoo aad gebagabada kusii dhowaatana waxaad ogaanaysaa inuu ahaa marin humaag iyo dhalanteed ah. marinkii dhabta ahaana wuu aad u dheer yahay, weliba wuu aad u fog yahay. weysayso 2 ragcadoodna tuko saaxiib, gacantaadana laabtaada saaroo dheh allahayow qalbigani gacantaada ayuu ku jiraa ee habadinsi hawareer xasilooni la'aan ah oo uu saldhigan waayo, go'aana uu qaadan kari waayo. allahayow calaamado wax ku tusi oo ishaarooyin wax ku fahamsii oo hanuuni, adiga ayaa ah rabbiga habowsanayaashee. nabaadiina saaxiib.